Carqaladeyntii KMBC TV Agoosto 1987 waxay ahayd maalin cabsi badan. Xubnaha KMBC TV ee Los Angeles, Stallman wuxuu ku guuleystay in uu marin u helo istuudiyaha KMBC ee California, isagoo sheeganaya in uu marti u yahay mid ka mid ah shaqaalaha xarunta. Xafiga David oo barnaamij ku jira ayaa waxa uu soo galay Stallman, wuxuuna ula soo baxay bistoolad, wuxuuna ku qasbay in uu aqriyo bayaan ku qornaa warqad uu isagu watay. To read this copy which was just handed to me. You want to tell me your name? Labada nin waa laba shakhsi oo Carab ah, waxaana mid kasta oo iyaga ka mid ah doonaya in fikradiisa uu si qasab ah midka kale uga dhaadhiciyo, balse Soomaali ayaa hore waxay u tiri rag maankiis waa mudacyo caaradood. Ninka habeen socodkiisu bato saan ayaa ku soo socota. Waa calaamito lacag la'aan ah. Baabuurka waxaa saaran tuugo, waxay isku dayayaan in maskiinkan wuxuu soo shaqaystay ka qaataan. Ninkii wili lagama harin, waa la daba socdaa, balse wuxuu marba dhinac u ordo, waxaa u suurto gashay in uu ka baxsado.